أهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال إدلكين بهالكن و SBS أنا قلنا وحنا شاشة وررك حقته وررك التلفزيون SBS-نا وحقيبك رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري أيام مقدشة كل ماي كحجان كحجايها قرمة المدوبي أرمها صوماليا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله محمد farmaajo ayaa sheegay in dawlad goboleedyada qaar ay la shaqeeyaan dalal cadow ku ah Soomaaliya oo aanan doonayn horumarkeeda. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kula hadlay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ciidamada tababar ugu soo dhamaaday dalka Turkiga oo Muqdisho dib ugu soo laabtay. Ciidamada cirka Soomaaliya waxay xuseen maanta maalinta ciidanka cirka la aasaasay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa oo ay ka mid yihiin sheekooyin xiiso leh oo la xiriira dad la sheegay in dunida 800 oo kun oo sano ka hor ay ku noolaan jireen oo hadda qaybo ka mid ah wadamada dhaca galbeedka Afrika lagu arkay. U diyaar garoow mar kale barnaamijka xogta wararka oo dhameystiran. aan ku bilaabay sida hore barnaamijka baad ku daawaneyseen aqyaaray ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka xogayaha qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii qaramada midoobay ay uga caawin lahayd Soomaaliya arrimaha horumarinta iyo amaanka waana la isku afgartay wada hadalada labada dhinac waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in ay sii xoojinayso dadaalada ay ku doonayso in Soomaaliya ay cagaheeda ku istaagto iyadoo qaramada midoobay Soomaaliya ay ka caawiso arrimo ay ka mid yihiin horumarinta mashaariicda kala duwan ee dalka ka socda iyo waliba amaanka. ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyay qaramada midoobay iyo wakiilka uu kulanka la qaatay waxaana uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in qaramada midoobay ay door wanaagsan ka ciyaartay arrimaha horumarineed iyo ammaan ee dalka Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in maamul goboleedyada dalka ka jira qaybtood ay la safan yihiin dalal cadow ku ah Soomaaliya oo aanu doonayn in horumarka Soomaaliya laga shaqeeyo waxaana uu sheegay in marar badan ay isku dayeen dalalka danaha gaarka kale Soomaaliya inay adeegsadaan madaxda maamul goboleedyada waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada qaar ay u fahmeen federaalka in uu yahay in ama uu siinayo awood la mid ah tan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu dhinaca kale ku sheegay waraysi uu dhawaan bixiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dawladda Soomaaliya ay ku dadaalayso in nidaamka federaalka sax ahaanshihiisa la wada qaato isla markaasina ay dawladda ka feejigan tahay wax walba oo lagu curyaaminayo arrimaha nabadeynta dib u heshiisiinta iyo horumarka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya
mudane xasan cali maxamed amar dambe oo ayaa waxa uu garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kula hadlay ciidamo tababar u soo xirmay oo markaasi dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. waxa uu u rajeeyay ciidamadan in ay gutaan howlihii loo soo tababaray, waxaana uu sheegay in ciidamadani ay wax badan ka qaban doonaan ammaanka dalka. waa kan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlaya ciidamadaasi. kuliyadda Turkson ee walaalaha Turkiga, saraakiisha xigeenada dhammaan iyo kumaandooska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ururka gorgor ee qaybtiisa afaraad, dhammaantiin bahda saxaafadda waxaan ugu salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacdi salaam, maanta waa maalin noo farxad badan. waxaad xasuusataan 120 cisho ka hor ayaad waxaad ka baxdeen dalkiina hooyo. waxaad muujiseen mas-uuliyad, waxaad muujiseen aaminaad, waxaad muujiseen runtii karti inaad dalkiina wax u soo barataan oo dibna ugu soo laabataan oo si dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba aad u difaacdaan. aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaan. runtii taliyaha ayaa ka dhawaajiyey waajibaad cusub, shaqo cusub ku soo dhowaada. waxaad ka mid tihiin aas-aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. saaad og tihiin waxaan ku jirnaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaan haysanno ama aan helno wiilal dhallinyaro ah diyaar u noqday inay bixiyaan naftooda, cirdigooda, sharafkooda, inay dalkooda hooyo u bixiyaan si ay ugu difaacaan diintooda, si ay ugu difaacaan dalkooda hooyo. waa la socotaan dalka dhibaato badan ayaa ka jirto. waxaan nala dagaalamay dad isku dhaqan aan nahay oo muuqaalkeena leh oo urur al-shabaab la yidhaahdo iyo daa'ish. waxaa lidinkaga fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed idinkaga fadhisaa inaad ka difaacdaan, inaad ka xuraysaan, inaad sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed aad soo celisaan. ilaahay xamdigiisa waxaan ognahay inaad geesiyaal aad tihiin. waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ka dhalanayo ummadda Soomaaliyeed, aan haysanno wiilal iyo gabdho oo dhammaantoodaba runtii geesiyaala. taariikh ayaad ku laheedeen geeska Afrika. waxaan rajaynaynaa taariikhdii taariikh ka fiican inaad samaysaan. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii waqtigiisa ugu badan uu geliyey si uu dhisi lahaa ciidamada qalabka sida guud ahaan, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo isna habeen iyo maalin runtii ugu shaqeeyo si inuu ciidanku uu member u ka yahay oo kale ciidamadu u garab taagan yahay. isigana aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa. runtii waxaan soo gaarnay waqti aad u fiican. maanta idinka ayaa soo laabateen. maalmaha soo socdana waxaan diri doonaa ururka shanaad insha allahu tacaala, meelaad wax ka soo barateen iyagana sidoo kale inay wax ugu soo bartaan. waa wanaagsan ayaa ummadda Soomaaliyeed u dhashay, taasoo aan dhihi karno inaan urur buuxa la diro oo dalkiisi dib ugu soo laabta asigoo xaaladaha og, oo mid kale la diro soo laabta, mid saddexaad la diro, kii afraad maanta idinka aad tihiin. kan shanaad insha allah waxaan rajaynayna inuu dib ugu soo laabto dalka. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo bashbash. waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa. aniga haddaa wasaaradda gaashaandhigga nahayna garabkiina ayaan nahay, hiil iyo hooba insha allahu taala idinla garab taagannahay. guulaysta, Soomaaliya ha guulaysato, Soomaaliya ha guulaysato, Soomaaliya ha guulaysato. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guulaysto, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guulaysto. insha allahu tacaala muuqaalkiina wuxuu jebinayaa cadowga ummadda Soomaaliyeed. kaasi waxa uu wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe oo la hadlayay ciidamo tababar ugu dhammaaday dalka Turkiga oo Muqdisho dib ugu soo laabtay. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyay habka loo marayo deyn cafinta oo qaybtii ugu dambeysay la filayo in 27 February Washington ay heshiis ku kala saxan doonaan dowladda Soomaaliya iyo bangiga adduunka. wasiir Bayle ayaa sheegay in wadamada kule Soomaaliya iyo bangiyada deymaha kule
Soomaaliya ay hadda diyaarinayaan istaraatiijiyada deyn cafinta dalka iyada oo 13 iyo 12 bishan aynu ku jirno ee Febraayo World Bank ama bangiga adduunka iyo hay'adda IMF ay sheegeen in Soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee deyn cafinta. Waa kan wasiir Bayle oo sharaxaya. mar haddii IMF iyo World Bank soo saareen malahoodu waxa uu yahay qaraarkoodu wuxuu yahay inay Soomaaliya deyn cafintii meeshii looga baahnaa marayaan ya ay mutaysteen in deynta laga daayo xarafkaas hoosta laga xariiqaya Soomaaliya waxay mutaysatay deyntii baa laga dhaafay wali ma waxay mutaysatay wixii looga baahnaa oo dhan ay fulisay in deynta laga cafiyo taas horta shirarka yihiin shirka ku xiga marka waxa weeye 12 13 way xaqiijiyeen inaan eligible u nahay amaan mutaysanay waxa ku xigaya marka waxa weeyaan in baan waliba goonidiisa u shiro oo deyn cafintiisii galo ayaa ku xigaya World Bank waxa weeyaan 7 bishan aan ku jirno maalinta Washington maan tagaynaa hadii la yiraahdo waxaan la soo seexanaynaa deyn cafinta la seexanaynaa African Development Banka horumarinta Africa isna 26 maalin buu ka horeeya waa saddexdooda way isdaba socdaan IMF tuna iyar buu ka dambeynaya laan IMF to arrimaha sidii wax ku cafiso ya ka adag sidii wax ku cafisaa tan kala ka adag yani macni waxa weeye lacagtii la inagu lahaa in meel laga soo ururiyo weeyaan dabeetana lacagtiisa lagu bixiyo marka iyagu waxa shiri doonaan in kasto ay shalay gaadheen in deyn cafintii ay diyaar loo yahay haddana iyagu waxa shiri doonaan bish soo socota March ay shiri doonaan marka decision point ku wuxuu noqonayaa markay saddexdooduba shiraan ay saddexdooduba isku dhameystir ka ugu dambeeya shiro ayaa la oranayaa waxa weeye decision point macnaheedu yahay waxa laga shiray qaraarna la gaaray in deynta la cafiyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka ayuu kaasi ahaa oo sharaxayay markaasi deyn cafinta iyo nidaamka ugu dambeeya qorshaha ugu dambeeyay oo hadda soconaya iyadoo la filayo in 27 bishan iyo 26 ay dhacaan shirar looga go'aan gaaraya qaybtii ugu dambeysay ee deyn cafinta Soomaaliya. maanta waxay ku beegan tahay maalinta la aasaasay ciidamada cirka Soomaaliya waxaana Muqdisho lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayo maalinkaasi iyada ah 15 February 60 sano ka hor maanta oo kale ayaa ciidamadani markaasi dhidabada loo taagay waxaana ay ka shaqeeyaan ilaalinta xeebaha iyo badaha dalka Soomaaliya. ciidamadan ayaa waxa ay heli doonaan dhawaan tababaro iyo kordhin loo sameyn doono waxaana dawladda Soomaaliya ay xoog iska saartay sidii loo tayeyn lahaa ciidamada cirka mar labaad iyo mar saddexaad aan u hambalyeeyno buugaadinana dhammaan ciidanka cirka Soomaaliya ciidanka cirka saraakiil xigeen dabley iyo askarba iyo eheladoodaba waxaan u rajaynaynaa baraare iyo barwaaqo iyo khayr insha Allah maanta maxaa nala gudboon maxaan rabnaa in uu noqdo ciidankaas 60 sano jirsaday ishaan leh maanta maxaan rabnaa inuu noqdo ciidankan waxaan doonaynaa insha Allah inuu noqdo ciidan soo cishada xuduudii uu lahaan jiray ayadoo la tixgelinayo maanta cilmigii iyo macrifadii inay technology iyo farsamo cusub ku ay soo baxday ayadoo laga faa'iideysanayo in kor loo qaado lana kubciyo tababarka ciidanka cirka Soomaaliyeed saraakiil xigeenada iyo askartaba maadaama ciidan farsamo yaqaan uu yahay intiisa badan in aqoonta kor loo qaado munaasabada ciidamada cirka Soomaaliya oo 60 sano jirsatay ayaa daawateen aqyaaray walina waxaad dhageysanaysaan barnaamijka xogta wararka ee telefishinka SBS waxaan inoo hayaa warbixino xiiso leh oo soo socday ka mid yihiin dad la sheegay inaysan dadka u ekayn oo dunida ku noolaa 800,000 oo sano iyo wiil iska dhigay gabar oo lagu qabtay dalka Turkiga hase ahaatee Muqdisho waxay ka mid tahay magaalooyinka dalka Soomaaliya dhalinyarada ku nool waxay u badan yihiin kuwa mucaashaqiin oo inta badan xurmeeya jacaylka marka aad aragto Facebook-yada ama baraha bulshada ay isticmaasho ayaadna arki kartaa muuqaalo wiilal iyo gabdho qaadaya heesa jacayl waxaana dhinaca kale fanaaniinta Soomaalida ay u badan yihiin qaadista heesaha jacaylka Febraayo sanad walba 14keeda waxaa dunida laga xusaa maalinta jacaylka oo dadka isjecel ama lamaanaha isjeceli
ay isdhaafsadaan hadiyado qurux badan oo midba midka kale uu u hadiyadaynayo si markaasi loo sii amba qaado jacayl ka weyn kii hore oo u dhammaada maxabo guur iyo ilmo layska dhalo. haddaba wariyaha telefishinka SBS ee magaalada Muqdisho Munir Kaske ayaa mikrofoonka SBS la dhex qaaday qaar ka mid ah dhalinyarada Muqdisho waxaana uu weydiiyey su'aalo la xiriira jacaylka. maalinka jacaylka adduunka oo shalay ku aadanaay sidee u aragtaa walaa jacaylka waa jacaylka waa wax qurux badan haa waa soo maray jacayl weli haa waa haystaa jacaylkii hore bariisamaadkii jacaylka anoo 14 jir ahaa guursan maasha Allah hadan oolaala ilaahay siiye magacaygu waxa Cabdiqaasim Ciise Farax shalay waxay ahayd maalin taariikh ah midda kale waxay ahayd 14 February maalinta jacaylka waxaan ku saabsanayd sababtoo jacaylka hore kan wuxuu kuldiyanaa kan waan la xusuuyaa waan xasuusin laakiin kii hore kan hooyaday aabay ma la xusuusin jirin ma la xasuusin jirin laakiin kan waxa waaye waan la xusuuyaa waan la xasuusinaa marka aan leeyahay is jecel waxaan leeyahay isku waara weligiin dadkii isguursaday maanta iyo dadkii hore waxaan u soo joogay inay aad u kala muhiimsan yihiin maanta dadka hadda joogaa fursad ayay haystaan jacaylka waa inay ka faa'iidaystaan rabitaankooda guurka kii hore wuxuu ahaa xoogaa maaragtay caqabado xagga dhanka labada waalid ayaa naga soo gaari jiray iyadoo ay kala tahay in xisaabaad laisku xiro qarashaadka dhanka ah sabilaadana aysan fursad u haysan dhallinyaradu in badan hadda laakiin waxaan fursad u helnay in waalidkii iyo dadkii lamaanihii dhammaantood ay isfahmeen dhammaan intaas ayaan ku soo koobayaa maantoo kale fursad waaye waxaa lagu hambalyeynaa in maaragtay jacaylka laga faa'iidaysto dadkii isguursaday hambaliya ayaan leeyahay dadkii isguursaday hambaliyo dadkii ka faa'iidaysta jacaylka maanta oo kale hambaliyo waxaa soo daawateen dhalinyaro kala duwan oo hablo iyo wiilalba leh oo ka sheekeynayay jacaylka dareenkooda ku aadan iyo Febraayada la xuso sanad walba 14keeda waxaa naga xusuusina in munaasabadaasi ay ku beegnayd shalay oo 14ka bishan aynu ku jirno warbaahinta dalka Turkiga ayaa daabacday ama baahisay muuqaal muujinaya wiil Soomaaliyeed oo isu ekeysiyay gabarkaasi oo doonayay in qaaradda Yurub uu kaga sii talaabo Turkiga waxaana muuqaalada ay laga duubay garoonkaasi sidoo kale ay muujinayeen in gabadha siisay baasaboorka markaasi uu doonayay in wiilkaasi uu ku dhoofo lagu dhex qabtay isla gudaha garoonkaasi dadka qaar ayaa sheegay in gabadha siisay baasaboorka ay ahayd saaxiibtii walow dad kalena ay sheegayaan in ay wada dhasheen oo ay walaashii ahayd muuqaal ahaan labada qof ama wiilka iyo gabadha ayaa isu dhow balse waxa ay ku kala duwan yihiin sanka oo gabadhu waxa ay leedahay sanqaroor dheer iyo san afkiisa hore dhuuban balse wiilku waxa uu sankiisu lahaa baalal taasi ayaana shaki gelisay markaasi ciidamadii hubinta u joogay garoonka lagu ay ka duulaan dadka doonaya in Turkiga ay ka tagaan ama ay ku soo degaan waxaana dhacday in baaritaan dheer kadib la ogaaday in wiil uu yahay sida aad ku arkaysaan muuqaalka qol ayaa la geliyay wiilka Soomaaliga ah waxaana la amray in uu iska qaado masar ama qamaar uu xirnaa kaasi uu isagu ekeysiinayay gabar waxaana sidoo kale uu xiran yahay dharka dumarka jaakad weyna waa uu xirtay baaritaan ayaa socda labada qofna waa la hayaa wixii ka soo kordha waxaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah wararka iyo barnaamijyada soo socda waxaase naga xusuusina in wiilka magaciisa lagu koobay Ibrahim gabadhana lagu koobay Khadija dawladda Soomaaliya ilaa iyo hadda wax wara kama soo bixin marka loo eego safaarada dalka Turkiga ee dawladda Soomaaliya iyo waliba guud ahaan dawladda Soomaaliya Turkigana waxa wada baaritaano la xiriira wiilkan mana ahan kii ugu horeeyay ee sameeya sidan balse wuxuu noqonayaa wiilkii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo sidan Turkiga ka sameeya Mareykanka ayaa waxa uu soo daadiyay sida la sheegay warqado uu ku daabacan yahay nin la sheegay inuu ka tirsan yahay al-shabaab oo u dhashay dalka Mareykanka diinsoor oo kamid ah degmooyinka dalka ayaa xalay galinkii dambe waxaa lagu daadiyay warqado
uu ku sawiran yahay ninkan la sheegay inuu yahay muwaadin Maraykan ah oo looga shakisan yahay inuu markaasi joogo aaga Dinsoor. warqadda ayaa waxaa lagu qoray sidan: Mustafa waa muwaadin Maraykan ah oo u guuray dalka Soomaaliya oo xubin ka noqday ururka argagixisada Al-Shabaab waxa ay geysteen qaraxyo iyo weeraro badan oo ay ka fuliyeen geeska Afrika, halkaas oo ay ku dileen boqolaal shacab ah. barnaamijka abaalmarinta cadaaladda waxa ay bixinaysaa abaalmarin gaaraysa ilaa 5 milyan oo la siinayo qofkii soo sheega wax macluumaad ah oo horseedaya in la soo qabto ama la soo xiro ninkaasi. ugu dambeynna waxaa la sheegay in dunidan ay ku nool yihiin dad aad u tiro yar oo dhif iyo naadir ah, kuwaasi oo la sheegay in ayan u ekayn bini aadanka intiisa kale. dadkan ayaa muuqaal ahaan la sheegay inay u qaab eg yihiin daanyeerka waaweyn ee King Kong loo yaqaano ee markaasi u socda sida aadanaha oo kale. cilmi baare lagu magacaabo Siram Sankaram oo hoggaan u ah koox cilmi baarayaal ah ayaa sheegay in la helay dad ka duwan bini aadamka intiisa kale caadiyan oo dunida ku noolaa muddo haatan laga joogo 800,000 oo sano. faraca dadkan ayaa la sheegay in ay hadda qaybo ka mida oo dhif iyo naadira ay ku nool yihiin wadamo dhaca galbeedka qaaradda Afrika oo ay ka mid yihiin Sierra Leone, Nigeria iyo Gambia. dadkan ayaana la sheegay in ay yihiin boqolkiiba 1 ama 2 dadka intiisa kale, yacni marka loo eego wadamada ay ku nool yihiin. kooxdan saynis yahanada ah ee cilmi baarayaasha ayaa sheegay in ay ku ogaadeen dheecaan baaraha DNA-ga dadkan in ay weli ku nool yihiin qaybo ka mida wadamada aan kor ku soo sheegnay ka gadaal baaritaano lagu sameeyey qalfoof la helay oo ahaa lafaha qoomkan la sheegay in ay dunida ku noolaan jireen oo ay ka masaxmeen in ka badan 800,000 oo sano ka hor, marka laga soo tago qof dhif iyo naadir ah oo lagu arki karo dunidan qaybo ka mida qaaradda Afrika. cilmi baarayaasha ayaa sheegay in dadkani ay u ekaayeen sida daanyeerada jismiga waaweyn ee loo yaqaano King Kong ee u socda sida aadanaha, una dhaqma sida aadanaha in badan oo ka mida nolosha ama dhaqankooda. falsafadyahanno ama faylasuufiyo aan islaam ahayn oo badan oo ku noolaa dunida iyo kuwa hadda ku nool ayaa aaminsan in dadkan ay ahaayeen faracii markaasi dadka madowga ah ee ku nool dunida, iyaga oo sheegay in asal ahaan ay ka yimideen daanyeero, balse taasi ayaa ah been aan sal iyo raad toona lahayn, maadaama qur-aanka kariimka lagu qeexay abuurka aadanaha oo dadku ay ka soo wada faracmeen nabiyullaahi aadam calayhi salaam. waxaana sidoo kale qur-aanka uu caddeeyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkiisa uu u kala saaray qowmiyado iyo qabaa'ilo kala duwan, kuwaasi oo ku kala hadlaya afaf kala duwan, ku kala nool beeooyin kala duwan, sidoo kalena kala haysta diimo iyo dhaqamo kala duwan. waxaasi oo dhanna waa xigmadaha uu alle ka leeyahay abuurista koonkan uu ku abuuray aadanaha. guud ahaan intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka xogta wararka ee telefishinka SBS. aniga oo shaasho ah ayaa idin waramayay. SBS waad ka daawanayseen. barnaamijkan barnaamij xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.